soo dhawaada ummadda Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan soo dhawaada barnaamijka qorshe ay uguma jirin inaan soo galo yeel kale xaaladda degdega ah aad la socotaan ninkii daba casar ahaa shiikheeni weynaa ilaahay baa weyne wax garadka ahaa casharada fiican inoo waday Soomaaliya oo dhan u dhaxeeyay waa la socotaan dhibaatada lagu sameeyay waa la socotaan xaaladiisa waxaan doonayaa inaan daba casar xaaladiisa halka faahfaahin wararkii ugu dambeeyay idinka siiyo goor dhaweytaan dadka agdhow la hadlay qadar 3 daqiiqo 4 daqiiqo ka hor xaaladu xaalad adag weeyay sida la sheegay afayeenkii beesha daarood ba live ah oo aan wareysanayna live buu hadda halka soo galaya afayeenkii daarood waa wareysanayna baaq buu rabaa inuu maaragtay u diro wax garadka maaragtay reer Sheekh Isaaq ama Idoor ama Isaaq min kasta soo yaqaan marka xaaladda daba casar baan ku horeynayna ninkii daba casar ahaa Hargeysa tagaysaa la socoteen dhaawacyada soo gaaray waa la socotaan boggiisa waad ka aragteen ninkaas si xun buu u qabaa surku waa jaban yahay hadda waxa taleefanka ka dhigay nimankii gacanta ku hayay surku waa dhaawac buu ka qabaa halka qadaadka ah baa laga feeray halka surka wax buu ka qabaa madaxa waxa weeye xagga dhinaca dambe ah oo ubucda maskax jirka ah halka laftigeeda xididaa loo maleynaya inay qarxeen isagoo inta oo dib loo geystay xilniyaha uma noola meeshiisa lidsuunta iyo inay hoostu u nooshahay nin odayo 60 ku jira xilniyihiisa maxaa laga taabtaa meelaha soo ka hadlay maqal jireen markaas waxay moodeen inuu nin nool yahay oo wax ku hareeno iyo wax dambe dhalin bideen xilniyi waa ka tumeen sidii rati maxaa ku dhahday orgi maaragtay la tumayo xilniyi waa ka raqdeen waa baranay sida hadda la ii sheegay iyadoo ninkaas waxa dhibaato aqabo baan dhakhtar la geyn uu baxsad yahay guri hadda xaafad magaalada Jigjiga yar iyo maaqan wax lagu sheegayay ya afku iga boobine xaafad magaalada kamid ah Hargeysa buu hadda ku jira gacan ku gabad ku yahay qol yar buu ku jira xaaladiisu waa halis weeye magaalada control kasta waa loo taagan yahay meel uu ka baxo ma leh meel uu fakado ma leh ninkaasi shurbada laga dhigay shurbada waxa halka ka dhacay Hargeysa maanta waxa ka dhacday wax ummadda Soomaaliyeed hore u aragtay taariikh ku aragtay laga sheekeeyay loo soo joogay midna ma aha birmageyda ummadda Soomaaliyeed waa ixtiraam jirtay birmageydu waa ninka martida ku ah waa ninka sacaboolid ah oo gurigaaga jooga usoo faramaran oo aan kula tabarahayn ninka oo kala birmageyda la oran jiray cadow kasta iyo xumaan kasta oo ka dhaxaysana in madaxa la saari jiray waxa weeye waa la dhigin jiray waa la nool jiray ya jicsin baa la siin jiray xeradu ka yimaa lagu simi jiray intii reer Sheekh Isaaq maanta waa dumiyeen annagu halka maamul baa ka jiro oran meynee maamul haduu ka jiro maxkamad baa la geyn lahaa waxa 5 cisho dhex joogay maxaa ku raahday waa tarxiil lahayn airportka ka cilin lahayn maxkamad bay geyn lahaayeen maxaa ku dhahay marxaantiye keeni lahaayeen waxyaabo badan baa ka horeysay laakiin in sidii maaragtay wan goosada ari goosmay oo dhidar meel cilla ka helay saa inta loo qabto ninkii tuu taago maanta la jibiyo la khalqdo wax meesha ku jirtay ma ahayn afayeenka daarood baa hadda soo qabanaya isaga maaragtay la hadlay baaqna reer Sheekh Isaaq u diraya waxay ka yeelayaan iyo maaragtay ninkaas magtiisa meesha u raadsan lahaayeen hadii maaragtay saa ku tago isaga ka hadlaya ka hor dhicimayo laakiinse waxaas maanta Hargeysa ka dhacay reer Sheekh Isaaq oo dad sharaf la ahaydeen sharafini ma aha oday 80 jiray inuu maanta inuu ku dhaxooyo daba casar 80 jiray oo inuu ku dhaxooyo oo waxaan ku raacay garaacadaan oo dhakhtar geen weydaan Sooria warkeed ha jiray oo inuu ka dhax barooranayo oo inuu ku dhaxooyo ruuxaas nasabnima gunnimada waa laga carari jiray ya gobta Soomaaliyeed baa ku xaman jiray maanta gunnima dhex fadhidaan diiqo baa dhex fadhidaan warma daba casar oo 60 jira oo sodog ah oo aaboowe ah oo aabe ah oo birmageyda ah oo martiini ah oo sacba maran ba kuwa waxa laga sheegayay waa marxaan waa dadkii maaragtay nala xasuuqay warteed konto kun baa nala ka deebaa lahaydeen manin baa marka konto gooya manin baa gooya markaas luqunta jabsanaysan kaga samreysaan ila konto dawlad baa nala dirtaa lahaydeen ma shakhsi bay nala diray maya hal ninka la yiraahdo dab casar wadaad buu ahaa waqtigii kacaankii Soomaaliya wuxuu ahaa tabliiq buu la socday dab casar tabliiq buu la socday oo wallaahi tabliiq buu la socday dawladda siyaad barhaabeen xataa meel ay joogto ma seexan
tabliiq buu la socday dadkii dowladda Soomaaliya ku jiray rajiim bay ahaayeen isbaahaystay Musa general ku qaatay كورنيل كوقاتي محمد حاش محمد كنا محمد كاهن كوزير أرمي جودا لقد جي باكوقاتي إن كوقاتي كورنيل كوقاتي إن ما أنت اللي راح ضد بعصر وفقش تعرض أو مريحانة وودتك كنتم كيو كل عي لودلو وهرجيس لوجو بهالكيو جركتي إذن كودا تيم بيني كحمينيسا يا جرك ما أنت محل جر إيمان إنسان محله وأنا اللي يسين بأول هيدا لبقى له وحول الدولة بأن اللي يسوق دفاع يسوق جرا هيدا ورما شخصي بقى كنت يكون عشان يسين قوية غير شيء إسحاق مرضى يعني كذا على ما مرضى يعني كذا على إنه ننسي ديت كذا شيخ طبع عصر أو سديت كذا أو أفر تفاتح حفت سن ما أنتوا يعني كذا أيوه وربحته يقول لماذا إني هرتي محيته يقول لماذا إني هرتي الدشين كراعدين يعني كذا أيوه دكتور جين شافت كدوبين سرك الجبين هاي ماذا حد يكفر مي حين يجوا أيهين سيدي مارتي كاره سالوجيري ورمحيتها شرفت عليهن دو حير إسلام حيرين محاكو هذا حير عالم مارتي محكسن ميت صومالي النمو وحوي محيجن دقنكي صوماليات مارتي ومئجن وحا سميسين مانتا وحا أمد الصومالي القابلين سومها تدك سومالي لان أنو أرمي قبيل غير شيخ إسحاق بان لها اللي دبع سنة ومقلسين يدور بقى إدلي إساق بقى إدلي يقبطبوا لها وحوي سومالي لان مامل دارود نسكة يهوي وهرتبا نسكة ما أنت هديد أهان هاي مامل لو سمي هاي دبع سر وحا هالكاكو مدعين إنه قدرت شكو بتبادلها إنه قدرت شكوتو مالها يا وحي كو عطينيسا مامل ريليه إنه تابي كو عطينيسا وي دادك هرتيقة oo dhulbahantaha leh oo warsangeliga leh oo hargeysa jooga maanta inay ka wada goostaan weey yarka dhaqaaqa meesha xirag gumba fadhidaane nacala talacaleek baan ku nidhay hadii ina adeerkiisa maanta wajiga looga fiqay war maxaa inii yaala meesha maxaa inii yaala war maleni ka waayay cali khaliifna ku daro mid ninka ku hagoogta maanta maleni ka waayay maxay tahay maxaa dawladda ku leeyihiin ما وزيردي يوحي مقعيدي ففتها أو بنتها أو مارت اللي نيم قعبي ما يكواسي ما تم تبع السر أضيق دارو دوينا أو بقر كدارو ما تم إنكم بحسن واي ما إنكم بحسن واي ما أنت يا ننشد اليوم اللي نكواي أو مارتي كانوا مارتي باشي قدوم يا بهرمان كأها كانوا نقضوا عدم يوزير كاشان ديك صون نقضوا كانوا نقضوا ننشد ليها وحي كل عيا تبع السر وسووا كل عن رجعني بأهان هاي تبندر الجامان تروح لها مقعد دل بهرجيسة كداعي عدة سلاكين ودرنتهاي وريش حساقوي ريش حساق أفيانك دارود باصوص على حتى أفيانك دارود إسقان ورسننا أفيانك دارود با ريش حساق فرين ودري أدق سو شيء هذا سوق بنينا أفيانك دارود بسوق بنينا هل كاوحي كدعي ما أنت أقونسجي ما أنت أستن هرجيسة أولي لحنا جراه دوكو أويو ورا قونسجي نهر محوية أقونسجي دين هري أقونسجي دين هر محوية يا محوية أقونسجي نهري يا أقونسجي كرفتان أدونك حقوق آدم بقى أقونسجي الإسكوسية واحد كعبنا السين وديارنا الكل شيء إنا نن لحنا جرو بلكوك تبية ما أنت أحني شربتك كدكتين أرحل جبسين سرك كالجوسين قذات كجبسين ورموحس أقونسجي الوهلا باش عالم كان جالسيننا قرمد مدوبان وقرينا ملول بوجيننا وحا هرجيسة ما أنت كدعي صوت السودان كمدعين waxa hargeysa maanta ka dhacay South Sudan kama dhicin waxa halka maanta hargeysa ka dhacay ya waxa ka dhacay xasuuq halka maanta ka dhacay ruhooyingi bangaaligi xataa kuwi laga bahalkay nin magaaladii dux joogo oo halka oo la isu qabtay oo la jabiyay oo daawadii maanta loo leeyahay ya isuga afayeenki daarood baa soo socday isuga way maxaa maanta halka ka dhacay طلعي ورمي باشمي علي خليفة شيسكو قالك ما جرين يا دارود كلا إن الضمان القاضو ميانو كجرين معنى تاي وحكاني مدة كلا راشي حساق ميدن اسقبان كرين هدي عيدا مدينة خلدمين هدي موسى أو خير على الهين أو مفسدها أو مجرمها أو إن وحلا لاي ما علم كلا صبرا يا هدي وحا كوك عين كان عستدي ميه على سيره مساجدة كقيلين جري ميه دهب شيركي قناع سقها أو العقد سوما يتكدقي ميه ما نيكا أوتكتان
warbal laysaba ma dhakhtar geystaan ma dheerana kana ugu dartaan ma bal horta dhakhtar geystaan maxkamadu ay indameysay ninkii in la garaaco oo saacada misana gacanka isagoo dhafoor walba jaban yahay oo saacada qol ka soo barooranayo warcaawa horda nooma eka hadaan ummadda Soomaaliyeed nahay waxa halka ka dhacayna jariimo weeye Soomaalina nabad heli mayso inta sida maaragtay qof Soomaali saa loo bahalkaynayo xagee aqoonsiga laga heliyaa xagee aqoonsigu jira adduunka waxa lagu war naga daayay على عشيدان كويا الهير شيخ إسحاق هرب سميسين مانتا ها وي هرب سميسين مانتا ما سميسين ور مين سقمان كرين عولدون بانيكا سكو جوغ عولدون ما انتو دوفي ما انتا وعي هدا وعي عولدون ما انتو مقدشي كدقي بالي اول بشنتي عشوالك جوغي عولدون با وحوي وحليري او اها مارتي دفاع وها marka arka ka meesha war aduun magacaba ka hara war aan qabtay dabadooda la qabtaa war ka gaar warkaca inta goortahay war inta istaba qabta war ninka dhakhtar geey war ninka yuu ku dhiman boqol halaad weeye yuu ku dhiman ninku boqol wallahi noqon mayo kan waliba noqon mayo boqol waa dad waa waxyaabaha nooca ah Soomaalidu xataa kama heshin jirin ya waa noocan laga heshin weeye ma hadhada halka ka dhacday waxyaabo aan laga heshin karin weeye Soomaalidu taa oo kale xataa kama wada hadli jirin waa waxyaabo la isugu jiray weeye يا وحيابي اللي سوق جري وي ورمانتا قبدين أطرة ورمجعين أطرة ورقبني مدين أطرة يا ورمانتا ورنتا إلى عشرة قرئي حرا بيلا ورنتا إلى عشرة أفين واكسوغيا أفين سوقل كومنتي يسوق قران افيان كسوقبتي سوقل ما ركتي reer saaq nus ba ku daawanaya waxa weeye bal ninka meesha u raaci doontaan sheegateen soogal afayeen comment iso qor afayeen ha waa ku daawanaya ha soogal afayeen marka waxa weeye tan waa tii Soomaalidu isugu go'i jirtay weeye waa tii Soomaalidu ay isugu go'i jirtay ha waa kan afayeenka haddu yimi waa kan ha واتي أن ليه هالجيمي سوي فيك تارود ور أفين اسكدو كاميرا اسكدو أفين كاميرا اسكدو أفين صايق مدو عادي ما هم يا شيء ما يا كذا على الله نوجد نافين حوجا حاجة اسكدو كوما كاميرا سل كاميرا وكا afayeenkii beesha daaro Sultan Maxamed Yuusuf Cabdi soo dhawow ummadii Soomaaliyeed oo reer Sheekh Isaaq badan waa ku daawanayaan wixii Hargeysa ka dhacay dabacasar jugti ku dhacay soo aragteen aad baad u mahadsantahay shiino runtii Cabdiraxmaan dabacasar loo yaqaano wixii kaga dhacay magaalada Hargeysa ee maamulka Soomaaliland aad iyo aad baan u cambaaraynaynaa wax loo baahan yahay ma ahayn wax dad Soomaaliyeed isku suubiyana ma suubin reer Hargeysa waxaan u leenahay waa la idin kula xisaabtamaya dabacasar waa nin daarooda labada garba wayna ka xigaan daarood oo waad ogtihiin dadku way is yaqaaniin marka dabacasar waa la idin kula xisaabtamaya cali khaliif galayrna aad baan ugu mahad celinayaa dabacasar waa in adeerkiisa waa u hiiliyo wixii war meesha miyaadan garanaynaa taagan tahay marka waxaan leeyahay ragga jooga oo hartiga iyo ragga ugaadeenka hadda dabacasar waa nin daaro Ismaaciil Jabardiya idinka la idinka rabaa waxa ay u geysteen reer Sheekh Isaaq iyo sida ay ula dhaqmeen aad iyo aad bayna saldanadu u cambaaraynaysaa arrinta aad bay u cambaaraynaysaa wax la qaadan karana ma aha shiinow intaasaan marka baaq u dirayaa waa la idinkula xisaabtamaya ragguna hadda waa xisaabtamaya hadda ogaada waa la idinkula xisaabtamaya xagga bari iyo dhinac walba wayna ka jirnaa baa tiri taa micnaheedu waa soo duuleynaa miyaa ma duulaan baa qaadaysaan kolleyba waa nin rag oo hadda rag buu ka dhashay ma garatay isaguna hadda wuuba sheegayo markii buu sheego wixii war isaaqow war ninkaan hay waa garanaysaane qoriga hay ugu faanina buu yiri markii buu hadlay oo sheegay hadalkiisana hadda waa la soconnay hadda waxaan u sheegaynaa kolleyba dadku inuu xisaabtamayo waxay isaaq ku xisaabtamayaan oo inta u ordayaanna waa daarood weeye oo guri walba iyo meel walba ciidan u geynayaan siday daarood u heli lahaayeen marka ninkaan hadda waxaa jiidaysaana waa daarooda xisaabtama ogaada
waa gartay suldaan somaliland annagu maamul baa sida sheegtaan maamul weeye adiguna waxaa leedahay reer sheekh isaaq baa ninkaa dilay ninka marka ma maamulka somaliland baa u raacaysaan caawa hadduu baxo mise reer sheekh isaaq oo idoora u doonanaysaa meesha maamulka reer sheekh isaaq weeye meesha reer sheekh isaaq waa lagula xisaabtamaya dadku waa qabaa'il oo waa reer weeye intaasaan leeyahay marka waa laydinkula xisaabtamayaa baan hadalkayga kusoo jebinayaa waana ka xunnahay waxaa meesha ka dhacay waan cambaaraynaynaa بروفيسور علي خليف قليرنا وانو مهد علينا يا ني ولالكي هوغ الله بداي سوغو هيليا بار اسغنا ugu mahad celinaya laakiin waa ka sugaynaa isagana insha Allah ta'ala rag horena hadda xisaab waa jireen oo rag hore waa saa loo kar darbaaxaya wax loogu dhuftay oo aan xisaabteena ugu jiday oo hadda baan ognahay ma garat waa gartay marka haddii ninkaasi gacanta uu ku baxo oo gacan idoorsa ugu baxo oo tii allaba u timaado oo waxa weeye ilaahay yaa ku sababo maxaa idinka qorshe ah waxaad nooga qorshaa waa tashanaynaa haddii ilaahay qadaro waa tashanaynaa ragguna way shaqaana waa la isgaranayaa la isu dhuubamaayo intaasaan leeyahay marka hadalka intaasaan kusoo koobayaa war ninka dhakhtarna ha la geeyo hana la daweeyo intaasaan leeyahay waad mahadsan tahay shiinow raggu waa is yaqaanaa baa tiri muusena maalin dhaweytuu hadle wuxuu yidhi annaga weligeena rakama adkaano maalin dhaweytuu majerteenoo reerkiina ka mid ah ka soo jeedo u hanjabayey waxa weeye awowayaashay soo waraysta cid walba waa jiiri jirnay buu yidhi adna hadda waxaad leedahay waa labadiinaba waa faanaysaan taariikhda hore haddii maaragtay dib loo raaco labadiina kee waxa weeye legdinadka ah war taariikhda waa isqoraysaayo dadku ma qarsano halo ها سلطانك واسوع علينا حالتنا طبعا صار لفتي سيبا هذا سوق قبلنا هدي النص وتقشوا وحوي كل حالات أدق بكجرة طبعا صار وسوق قبلنا هذا سوق قبلنا هدي النص وتقشوا كل هاللي كرمية اللي يري هذا له اللي دتك اللي جوجي مركا سلطانku waa inoo soo noqonaya dabcan sarna cid baa inoo ku maqan ugaaskii marixaankana waa la inoo ku maqan yahay Soomaalidu qabiil weeye dad baa hadda halka ka hadlaya oo leh maxaan ku yiraahdaa qabiil maxaa arrinta ugu dhigaysaa Soomaalidu waa qabiil weeye haddii wax la istaaro in walba ninka shukraa weligeeni Soomaalidu saa dhaqan lahayd dabcan sar haddii maanta halka lagu jijiiday waxa ku jijiiday waa maqlayseen idoo isaaq weeye hargeysa isaaq weeye ninkii halka cid ku jijiitay isaaq weeye isaguna dagarac noqon maayo nin دارون وصومالي باكير يا بنقولي وسنة إسماعيل أما سنة دارو سأو تقانين أما مريحان بدي ونغنية مركز بهدي قبيل نقطي وأرنت اللقاويي ونكا برمجيدة أهرجيسة ما أنت سال لو جديدي وسوق مرتاح يسوق مارت وحول بهرجيسة كأحا يسوق اللحن جري يسوق صدق لا يسوق حديد لا يسوق حجال لا يسوق وحول بلا هدي القيمين واي أو حال إسلام لو إيجوا دين إسلام لو إيجوا oo xeerka dunida loo eegi waayay oo dhaqanka Soomaaliyeed loo tixgelin waayay oo Soomaali wixii ka dhaxayn jiray loo eegi waayay oo maanta la garaacay oo waliba loogu daray inaan dhakhtar la geeyo oo waliba uu saacada isagii baxsi yahay bal eega isagii oo dilan oo kood walba jaban yahay baa misana baxsi waa garatay Soomaaliyeed waa garatay Soomaha marka adeerayaan dadku taab maaha nin walba ninkiisa dadku u tirsan suldaanku hadda soo hadlay caraa ka muuqatay anuu kuma raacsanay lagu duulo iyo hal la dagaalamo iyo waxa aanu lama qabo oo dagaal kuma fiicna hadii waxa way boqol baa ku dhimanaya ama kun baa ku dhimanaya ceeb weeye dagaal Soomaaliya waa ka soo daashay laakiin si dadka in la isku ceebsado maaha nin walba nin buu yahay ya maanta siilaan iyo 80 buu jiraa isaaq hadda ka tagtay nin habar jeclaa muuse hadduu ninka xugaystay nin habara wala isaaqa habara wala hadda ka tagtana saacad musaawi ma garatay magaciisiina waa nin daarooda sida reer diintay marka dabacsan oo iyo 2017 la marayo in loo dilo dawladda kacaanka baa nin mareexaan haysan jiray oo hargeysa diyaarada ku duqeeyay in maanta loo dilo war waxayaan daraa way dawlad bay taasi ahayd reer xisaaق baa u badnaa muuse darajada qornaa ku qaad dabacsan habeen ma seexan meel dawladdaas joogto habeen uma dawaamin oo kama shaqaysan ciidan ma noqon shaqaale caadi uma noqon kitaabkiisu sitay tabriiq uu la socon jiray labada keetahay in loo qabto wixii halka dawladda siyaad bare lagu eedeynayo muuse iyo dabacsan keetahay muuse tahay hadii karta la eegayo
la eegmayo laakiinse qabiil baa meesha lagu socdaa waa la isu xog sheeganaya dadku waa kala gobsan yihiin waa la socotaan sanadkii ka horreeyey nin la yidhaahdo abwaan gamadiid baa waxa weeye argixisada gabi ku taageeray garow waa lagu xiray boosaasaa loo dhaadhiciyey 4 oday oo reer Sheekh Isaaqa u tegey waa loo soo daayey 50 kun oo Suuriya la soo siiyey isagoo dambiile inuu yahay la og yahay baa loo soo dhiibay hargeysa kala soo degan iyagoo Suuriyada iyo ninkii wata maalintuu airport ka soo degay baa Somaliland xirtay ilaa ay hadda xiran yihiin nin ciidan gala abu ahaa waa garatay Soomaha marka saasaa dadku taariikh u kala qoraysaa annagu dadkaan nima kala xigaan laakiin wixii dhacay saasaan u sheegayna in maanta reer Sheekh Isaaqna iyagoo dowladnimo doonaya iyagoo aqoonsi doonaya iyagoo maartay faankaas ay ku jirto yaa ha waxa soo hadlay gabadhii afayeenka haweenka daarad gabar hadlaysa hadda soo gashay haweenka daarad gabar hadlaysa waan soo qabanaynaa hay hadda soo gashay gabadhaasi hanugu barooran kaliya dhahay koleyga buraamur bay rabtaa inay tiriso haweenka daarad bay hadlaysaa say sheegtay ha gabar baa soo gashay afayeenka waxa weeye haweenka daarad rabtay inay u hadasho halka waxa weeye bal haweenku say waxay ururiyeen lacag bay ururiyeen bay la tahay iyo wixii halka ka yeelayaan bay ka hadlaysaa meeday gabadhaasi hadda la igu soo xiray gabar sida daarooda weeye Ethiopia ayaa loo dhibay waa kan wariyihii reer Sheekh Isaaq baan soo qabanaynaa wariyihii reer Sheekh Isaaq baan soo qabanaynaa hay isaga xaaladda Ethiopia loo dhibay sheegay wariyihii reer Sheekh Isaaq weeye wariyihii reer Sheekh Isaaq baan soo qabanaynaa wariyihii reer Sheekh Isaaq baan soo qabanaynaa marka gabar afayeen waxa muxuu ahaa qadra maxamed ma wahay gabar daarood hadlaysa hablaha daarood hadlaysa eedi halka wixii maanta ka dhacay fulxumada lahayd waa ku jira yaan la kala bixin gabadhaasa waxa weeye hadda bal waa hadlaysaa marka gabadha intay waa laygu maqan yahay hadda soo galaysaa marka wixii halka maanta ka dhacay isaaq waxay hadday maanta ka daba tagi waayaan khaladku waa dhacaa dadku waa isleen jiray waa laga xali jiray arrintaa hadday maanta ka daba tagi waayaan wallaahi billaahi tallahi gabarteed ka harimayso reer Sheekh Isaaq may maqlaysaan wallaahi gabarteed ka hadlimayso waxay dhaxal siinaysaa inaan gabdhahooda la guursan bay ka dhaxal siinaysaa maanta halkaa ka dhacdo Allah maxaan ku dhahay shaytaan ku yaali war ma wax la yeeli karaa nin halkaasa waa wariyii daaro wariyii Isaaq weeye bal waa la dhiibay ninkii hadda soo qoray Muuse adeerkiya sug hadda dad baa leh arrinta qabiilka ka daa war qabiil laga hadlimiyo nin walba ninkiisuu noqonaya Muuse reer weeye Soomaalidu wax kale waxa weeye nin walba qaran Soomaalida amnigooda damaanad qaadaya ma jiro nin walba ninkiisuu noqonaya ma garateen reer Sheekh Isaaq maanta dabcasar dowladda Soomaaliyeed oo ammaankiisa sugaysa ma jirto Soomaali waxa weeye edeg u kala fadhiya reer walba xiradiisu ootay maanta ninka la yiraahdo dabcasar qabiil baa loo dilay daaroodi baa loo dilay siyaad bara adeerka baa loo dilay oo aan aqoon intaasaa loo dilay ma garatay intaasaa loo dilay maxaa loo dilay maxaa kaloo loo dilay hargeysa waa la tegi jiray maxaa loo dilay Soomaaliya oo dhan hargeysa waa tagtay maxaa loo dilay waxa loo dilay reer hebel baa tahay mareexaan baa intaa naga dilay intaasaa loo dilay ma garatay taasaa lagu dilay gabadhii afayeenka isuga afayeenkii hablaha maba hayne intaa waxbay soo qoraysaana waa sheegaysaa maba hayne wixii halkaa maanta ka dhacay hal isugu reer Sheekh Isaaq maanta warooy ka jooga warooy arrinta aanu oday baan ahay oday Soomaaliyeed oo dhan u dhaxa baan ahay
maalinba meesha ka xun tahay waa tilmaamaa caawa waa caraysanahay gabadhii ma aqaan ma khadkaan aqoon daarood xagee kasoo gelisay gabadhii daarood u hadli lahayd baan soo qabanaynaa suga marka reer sheekh isxaaq waxaan idin leenahay or meeday yartu waa meeday hal gabay bay rabtaa hal buraanbur bay rabtaa halka inay ka tuurto marka wax yar isuga wax yar meeday yakhay dadkii waa naga sii kala daysay nacala shiidaan ku yaalay meeday iyada sabay adig naama soo guridan soo xiro soo fariiso meesha kuma haynee meeday 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 ma bahaynee meeday ornaga tagtay ornaga tag ornaga tag ornaga tag ma hayno ornaga tag ornaga tag ornaga tag ornaga tag warnaga tagtay qod tan iyo xiyeelin dadkii kala tirtay ma soo socotay meeday wax yar suga 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 tolay dadku wax yar suga marka daba casar reer jaxsan waxay isleeyihiin 100 geela bixiya war 100 geela wallahi looga tiimiyo wallahi kun laga qaadan wallahi 10 kun laga qaadan waa maqlisna afayeenka daarada maqlisay war ninka saak oo kale loo dilo ma hadda weeye ma garatay waa tii la isugu safeenka noqon jirtay weeye ma garatay wallahi hadii muuse biixi la soo taago looga samrin maayo muuse hadda soo taagtan iyo silaayo wada socdo sidii damaankii wallahi baan looga samrin wallahi baan maartay loogu qabanay ninka sida weligeeda dadku waxa weeye dad isku dhiman jiray shida male sida foosha xun ee loo garaacay waxa weeye xabad qof waa lagu dhuftaa ma garatay toori waa la geliyaa ma garatay gaari waa lagu dhuftaa waxa oo dhan waa arki jiray laakiin nin inta la qabto xiniyaha laga tumo lama arag ma garatay nin waxa weeye taa oo kale waxa weeye waa baktidil baa la dhahaa baktidil waa tii aan laga samri jirin wey waxa la arkay oo la maqlay oo hore looga sheekeeyey oo la arkay intaa oo gole oo Soomaali ku garamayso baa soo fadhiyay 4 biloodii abgaal iyo habal gidir dhaxaysanay ka karnaqay waxa wax kale oo sheegaya taa oo kale ima soo marin ba taa wax sheegaya maanta Hargeysa ka dhacday taariikhda Soomaaliyeed wax ku cusub weey ku qormatay wax garatay Soomaali waxaasi wax ku qormo wax ku cusub taariikhda ya weeye marka waxay yeelaysaa khayr Allah idin siiye reer Sheekh Isxaaqow inti caano qabtay dabadooda la qabtaa ninka waxa ku dhufatay kitan ku dhufatay meesha ka garaac karteen ka garaacday meesha ka tumi jirteen ka tuntay ma garateen ninkaas maanta gobonimada ka raaca ha israacinina ilaahay ka baqa ha israacinina ninka ha israacinina okay waatan afayeenka habli daarudo haleysay afayeenka habli daarood baa soo gashay waatan waraade afayeen the comment soo qab comment aan soo qabtay afayeen soo war Soomaali oo dhan baa qorayso commentiga soo qor ay gabar daarooda weeye waxa weeye haweenka daarood baa hadlaysa waxa weeye waa khadro weeye waa afayeenka daarood hablahooda weeye marka meeday marka arinta halka ka dhacday dabcasar haduu habarkii roo taabtay wallahi waa waqtaa meeday gabadhu waatan hadda soo qabanay waatan
سودو خضر محمد عبد الله معاك دعي فين كتمر دارود هلو أفيانك الدمر هبلها هوينك قولها هوينك دارود خضر محمد عبد الله سودو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. calankii ona lafna waa u jeedaa kaamirada isku du afayeenad kaamirada isku du kaamirada iskuma duwaynay qam u jeedaa sawirkii qalbi dhagaxna waa u jeednaa daarad weligood gobonimo dir buu ahaa waxa weeye yeelkadeeda maanta dawaco riftay bal warka keen afayeenad warka keen xaaladaas ee waragtay aad baan ku salaamaya adii asxaabta meesha ku gula jirta musharaxi shilin ku reebay waa gartay maanta dhacdada hargeysa ka dhacday ninkii daarood ku jiray Soomaali ku jiray boqorkii shanta Soomaaliyeed ahaa 60 jirka ahaa shiiqa ahaa afarta faataxada suuratul yaasiin xataa qalbiga ku haystay ninka wixii ku dhacay see waragteen aad baan uga xumay qof kasto damiir leh iyo qof kasto dhanqasha ku jirtana uu ka xun yahay ninkaas wixii laga dhaqmay waana fadeexad iyo bahdilnimo iyo gunnimo iyo waxa weeye dhaqan xumo aan hore loo arkin qof maskiin oo marti ah oo Soomaali ah oo wadankiisa jooga inay dawaca feenato waa arrin aad looga xumaado waa gartay hablaha daarood aniga ma aaminsani micnihii dadka Hargeysa jooga iyo ummadda meesha wada joogta Sheekh Shariif bala inay ka wada simanta laakiin dabcan dadka saaki helay ma ahan dad nasabad lagu tilmaami karo iyo dad caqli leh iyo dad garasho iyo bini aadanimo iyo Soomaalinimo intaba ay ku jirta ma aha kulli aniga waxaan aaminsanahay waa dad dhiig amxaara u ku jiro ma isku dayeyseen inaad la xiriirtaan ninka haddii jugahaas intay soo gaareen ma isku dayeyseen inaad la xiriirtaan waa isku dayeen inaan la xiriirno haddana waa ku tala jirnaa inaan la xiriirno marka ma idin suurto gashay ninkii waxa la yiri isagoo dhaawaca oo haddana baxsad yahay waxa weeye hadba xaafad Hargeysa kamid ah u hooyanaya ma ninka inaad isku xiriirtaan oo meesha ka samata bixisaan ma isku daydeen waa ku tala jirnaa insha Allah wuuna samata bixi Soomaali iyo dadkiisii iyo irxankiisii buuna u tagayaa insha Allah waa gartay hadda live-ka Cabdiwali Gaas iyo Cabdi Ilayba waa daawanayaan iyaga labada dhinac ka jiro ciidan haysta maxaa ugu baaqaysaa soo furtam leedahay ninka hal loo gurmado ma leedahay Cabdiwali Gaas iyo Cabdi Ilay midna uma baahna waa laba amxaar la daaq waa dhiig amxaara ku jira waji iyo wajuhna male cadaabta Ilaahay ha ugu bishaaray labadaas laakiin dab casar waxa weeye Soomaali baa garab taagan xaqiiqatan markii loo hadlana daarood weyna garab taagan markii runta loo hadlo hoos loo dhaadhaco anigu caawa waxaan ahay naag daarood Ismaaciil waa ka baxay wixii hore i beenbaanti ninka waxa weeye haddii tii alle u timaado maamulka Soomaaliland baa u raacaysan mise waxa weeye reer Sheekh Isaaq oo idoora u doonanaysaan Sheekh Isaaq baan u doonanaynaa waa kun nin magtooda u leeyahay kun nin magtooda ma ahan dab casar nin laga hari kara iyo nin dheedheela iyo nin hal nin u dhigma ma ahan waana nin qadiyad amxaara ku dhimanaya qadiyad amxaara ninkaas lagu dilay waa Cabdi Ilay iyo Cabdiwali Gaas iyo inta la ayniga ahna waa la qabaan waa gartay afayeenad waxaan ku weydiinayaa maamulka Somaliland daarood baa nusqa ah waxa weeye warsangeli baa jooga oo gobolka Sanaaga bahanto Soole baa jooga Hargeysa xilal culus bay maartay ka hayaan marka maxay ku dhacday in wiilna adeerkooda ay isu dhigi waayaan maanta oo lagu hor waxa weeye dharbaaxo lagu hor jugajugayo wallahi shiino waa damiir xumo iyo dadnimo xumo weeye ayagoo dad daarood ah ayagoo dad dhulkii ugu balaarnaa meesha ku leh ayagoo dad madaxdooda ay meesha joogaan in nin miskiina oo in adeerkooda oo marti ah oo Soomaali ah oo wadaad ah oo cid wax u dhimay aysan jirin oo aan siyaasad ku jirin oo aan qadiyad ku jirin in sidaa loola dhaqmo kolleyda ishiisa laga arkaa ushiisa lagu tumaa waani cashar ugu filan ila tahay dadka maanta meesha joogay daaroodka ku abtirsanaya ee dab casar sida loogu agalay kolley waana ugu filan kolley dadka ku soo xigana waa la yaqaanaa ninkii qeyrkiis loo xiiro waxa la adiguna soo qoyso hadde daba casar isaga laftigiisu khalad buu galay baa la yiri baasho gudoomiye baarlamaan meesha ka ah feerkii ku dhacay oo ciro ku dhuftay waa la ogaa sidii meesha lagu karbaashay waa la ogaa marka isagoo ogaa ninkiina adeerkii ahaa oo maamulka xilka ka hayay in Hargeysa dhexdiisa saa loogu karbaashay maxaa u sheegay meesha muxuu ka doonay isaga waxa geey xigtadiisa xigaaladiisa meesha degan ilmihiisa degan dadkiisa degan ma ahan qofka lama oran karo dhul Soomaaliyeed maxaa geeysheen qofku raas Kambooni ilaa raas Casar qofku uu tay kara Gaaris uu tay kara Jigjiga uu tay kara Jabuuti uu tay kara dhulku waa dhul Soomaaliyeed dadku waa dad Soomaaliyeed ma aha meel xuduud taala ma jirto shacabku meesha doonaan ay tay karaan ninka sida aan warka ku hayno
waxa loo haystaa nin daarooda oo mareexaana buu noqday baa la yidhi isagoo hargeysa joogo siyaad barre u duceeyey maaragtay waa in adeerkiis baa dad badan hargeysa ku laayay 50,000 oo qof dee arrintii baa waxa weeye aanaa loo dilay baa la leeyahay marka haddii idinku aano meelaha ka gataan maxaa hargeysa ninkaasi laftirkiisu muusan aaminsaneyn mowqif maxamed siyaad barre wuu tegey allah u naxariisto wixii uu ahaa iyo wuxuu qabtay wanaag iyo khayr ba uu la tegey ma ahan qof maanta joogo maskiin oo hargeysa joogo caruurtiisii soo boqdo dadkiisii soo boqdo ehelkiisii soo boqdo ma ahan in maxamed siyaad barre 30 sano qabri ku jiro in loo dhibaatay waa arrin bini aadanimada ka baxsan wey waxa dab casar ay saaka kula dhaqan mana u malaynay maxamed siyaad barre inay tahay sheekadu waa sheeko ay amxaara wadato caawa hadduu dhintana amxaara ninkaa dishay waa maxaad Itoobiya wax uga sheegtay maxaad cabdi ilay wax uga sheegtay dab casar caawa u dhibaneed Soomaaliya dhanna Itoobiya qabto شينو أنا ليجيجو أفر بقول كربو ضعف والله بالله دم عسر أرنتيس أنا قاعد بإيسا ميسي وايا محاد سومالي وين وشك تقف بني آذن ولا قد ليو ما أركن أول سوماليات وحن أنا قاعد حقيقة صدق واحد سومالي اللي يرادو يقول سومالي مني إني سنترين واقفتي نكا مركا إذا هوينك دارو داتين هذا وحوي وحول نختار كتجو إيو مارته وحرورين إيو مارته هذا نحن موحرتين dhaxdaanu xiradeynaa dhulkaanu ka qaadaynaa cirkaanu geynaynaa waanu daweynaynaa hiil iyo hoobaanu la garab taaganahay wiilkaygi way waanu daweysanaynaa waanu dhaqaaleysanaynaa meel alaali iyo meeshu doonuun Soomaaliya ka tagayaa lagu soo dhaweynayaa ilaa raas kaando booni ilaa raas caseer ilaa Kismaayo ilaa Jigjigo ilaa gaari maxaa la soo dhaweeyaa ninkii meel ku weydiinay ilaa gaalkacay Cabdi Weli gaasna kama taliyo meeshaan Cabdi Ilayna kama taliyo cuqubaha ku dhacday war maxaa soo dhaweysaa ninkii maanta meel ku sugan yahay ma ogid baa leedo ilaa saacada ma helin ninkii waxa weeye isagoo si xun loo garaacay oo xiniyaha xataa maartay laga tumay ninkii horta xaas ma laha kuwaasi waxa weeye tabadama ugu maharin la garaac baa la yiri muxuu xaas haweysa meesha xaaska laga haweysanaya laga garaacashiino هذا أرنتاس أرن أدق وي هواك دارو داتين مكوضة هذيك نفتركاج أكو سؤال ما إذن كورك دارو هذيك مشرح شيلن كريابات حالنا وأوجل لواتن كنا دولار بالجو بلنقاض بدو السومالي لجو إيبي نفتركاج ما هاد كقبت ما هاد لحيرت ما هاد قرش أو هيسا ورانو سياسة الصومالية ودحيان هاي أنا وحوي وريه الصومالية نواهي وحوي كيلكي دينعي أولا دكوبد وأولا لا ما قرأتي مركا إذن كانوا إن عندك كائن هور كائن عندك نوشة كتام أو باك أنو إنكي لايف نسوقليو ومد الصومالية إن هرجيو يو إن دعوة نيجلو ريش ساق ماركتي ملف كي نجيو وما قيب سمكرو وادو قيب سمكة سياسيكو بيلبو ماشي كو يمد كما عدن إيمانين إن وحكالة بيلباد ماشي كتبت بيش دارات باد ماشي كتبت دب عصر وانين طبعاً كي يكون داخل ليلين طبعاً كي يكونوا برلمان كل اسكو ديوان قلنا لها السلام على الجيل هبلاها أبقى المركي كدقين أنا وحي كدقي واواي حاني لي شيء زامر ما أنا أكو قرب تاج مركال أنا أكو قرب تاج أنا أقول إن كان قرب استاج وقول يستوى أبتهاي فرماجة إسقى محاو باقي ساعة أنت دبع عصر بوس مو قبل أرنت دبع عصر فرماجة بوس وقبل ناي هدو كهالي إلى مساءها إنه كهاليو واقرتي إنه صو عم باريو فرماجة وانك قلبي دقح ديبو قلبي دقح إيبسدي مركا قلبي دقح iyo dab casarna ma kala sokeeyaan arintaas aqoonsiga wax ma u dhibaysaa ba aaminsanta اعترافkiisa ma aha wax ma u dhibaysaa arintaas wax weyn bay u dhimaysaa wax weyn daabshil baa bad galay واقرتي دتكي سوماليلاند إلى هيد إساق لها مامل بين وضلين هاي ودبانت لها أو ورسنجلي لها أو إن وضدتنو أو قبيل أن كتقنو مامل هالك كده صنو سومالي كجونو أنت أسيد مسامين الساعة على خليفة كلها ينهر جسس يجوجيو على خليفة كله أنا كم أوجي نين ديج في علهن كله نينكا وانين محن كير هذا العيلي أو أي متشرتين عينين لكن معها نين ديج نين قد يدخلنا معها كلي waxay la tahay inuu arinta dab casar uusan ka seexan doonin warsangeliga iyo dhulbaantaha hargeysa jooga caawane ha ku cibra qaataan
واقرتي nin marka walba ugu beel buu dambeyntii maxaa ugu runta markaan baaqaysaa isku sheegna nin walba beel buu ku yimid meesha ugu dambeyntii wax garadka reer Isxaaq maxaa ugu baaqaysaa waxaan ugu baaqaynaa xaal iyo xumayn iyo sabeen xirba inay ka bixiyaan ninka dhibaatada ay maanta u geysteen comment iga soo dhibo ku soo qabtay sax waagartay ilaa iminkana ninkaa lama daweyn oo cid ka daba tagta ma jirto oo cid ka hadashay ma jirto marka waanu cambaaraynaynaa reer Sheekh Isxaaq hadday meesha ay wejiga karaamo ku hayaan ilamaba ahane waa gartay aad baan kuu salaamayaa khadro maxamed cabdulle afayeenka hablaha Soomaaliyeed hablaha daarood waa salaaman tahay waa ku salaamay in badan aan ka qaada adiga asxaabtaada shiin waxa weeye haddana nin waxa weeye warsangeliya oo dadka Hargeysa maaragtay u dhuun daloola ah oo arrintaas ka hadlaya baan soo qabanayaa nin warsangeliya soo qabanayaa dadka Soomaaliland wax kule sida Muuse Bixi sheego ilaa maamulka la wada leeyahay in adeerku halka lagu garaaco maanta suu arko baan hadda soo qabanayaa oo maamulka Soomaaliland aad ugu dhuun daloola wax badan ka soo qabtay wax badan ka soo shaqeeyay ninkaas hadda soo qabanayaa haddaan soo qabanayaa waa nin waxa weeye nin warsangeliya oo harti ah oo hartiga Soomaaliland jooga weeye bal wixii arrinta ka geli karaan ninka inay la soo baxsan karaan ninka in adeerkooda maanta hortooda lagu tumay xiliyaa laga qaraacay ma artay surka la jabiyay maxaa ku raahdaa jeegada la qaaday bal wixii u qabteen iyo wixii u qaban karaan buu ka hadlayaa والقبض قري حربيرة صلى دماغ قبتي القبو عالم كوسو قبني كانها قبني لايف كقبو قبل لايف كقبل لايف كانها قبني الله waxaan soo qabanayaa hartiga Hargeysa jooga nin ah bal arintaa waxay ka qaban karaan wadada uga furan ma aragtay waa nin warsangeliya maamulka Soomaaliland u dhuun daloola wax badan ka soo shaqeeyay wax badan ka qabtay suga wax yar ii dulqaata waxaan soo qabanayaa nin odaya Hargeysa jooga Soomaaliland xilal badan ka qabtay haddana aanu malaynayo caaw inuu wareedda ma qabato waa ku soo wacay ma leef ka qabato qabo kan ma ahay kan kala qabo shina dadkii baan kala sidaa qori xirab cid kale ma doona dadkii baan kala yaacay ariga ilaahay wax yar ii dulqaata waa soo qabanayaa nin odaya marka waxa weeye ninkaas waa heli waayay ninka marka waa isku علي خليفة هذا سوق بنية علي خليفة اللي كان وايه وين سوى علي خليفة هذا سوق بنية اوكي علي خليفة هذا سوق بنية علي هذا سوق بنية بالمحاهر جيسجي محاهر جيسجي وسوق هذا